bal adoo soo koobaya insha allah صح horta marka hore Cabdul aad ma santahay waxaana sameeyay horta waxaan member ka nahay London Somali Youth Forum London Somali Youth Forum waxay adeegan dhalinyarada oo hadda waxa meesha hadda ka jiro hadda waxay ka noqonaysaa waxyaabaha qaarkood oo adeegan marka waxa aan press release sameynay isla maalmihii maalinka xigtay ayaan meeting wada yeelanay London Somali Youth Forum iyo anaga oo ka hadalnay arintii oo aan press release u sameynay khaladkii la sameeyay taas horta sabab press release inaan bixinay midda labaadna waxaan la shaqeynaynay urur dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay jaamacadaha ku leh urur umbrella ah oo la yiraahdo I believe is USSA United UK Somali Student Association I think oo ay gabar raxmo ay wado inaan ka hadalnay aan waxyaabo badan inaan sameeyno ka wada hadalnay ilaa hadda arrintii way socotaa marka wixii soo kordhana waa ila soo socodsiin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo balse ma ahan kaliya London Somali Youth Forum ama maxaa lahaa the student union kaliya ma ahan laakiin meelo badan ayaa arrinta ka wadnaa hadda insha Allah tacaala wixii aan qabano ama soo kordhana waa ila soo socodsiinana maasanta Maxamed waxaan qaban doonaa telefoon kale ee Jurid adoo meesha ila fadhiya insha Allah ku soo dhawaad barnaamijka aragtida bulshada السلام عليكم. وعليكم السلام. والله المقعد ماشي اتصال ليسو. والله السهرة اللي هذا بحوين ورثة والسلام يا. وكاقع بسهرة. إيه كان محمد ما يقرأ له هذا معمر بس وين ويرسكتي ودليرة خرج مرها ولا قد نحسبي بركة واحد ولا يسوي هذا كده هذا تاسو كرة كل متو. وقاعدة وحب الله ما قلت ولا بالناس كراي هكذا كتير وان مقالة حتى تاب ما هي جبوا يلا ترى إن أتراها هذا بيقول حد حبك بيتشر ودنا لا بتاعته كلام يجاهد. صح. فأنت بحد تسأل كوا كسر خلط كيس هذا اليوم. والله سنتاي. والله سنتاي. تسأل قولت أنا كذا يكل جيل من لا شوفتان ده. سكر شغالة ده وحنا بقرب معين كستا. واحد شتاء دون حقوق ده ولا صبح أنا وحد أنا اللي بقرب ويسكع أنا تعود كده بقى تلفون بسيشن بعد ولا سكرية. صح. وحوين جورنال كله هذا بس ما هي مكوكريا يمكن إذا غلبت كل سوق قلبي سات بيروح عالي. واحد يبتحي تامر إلى هذين حافظ الجرين تمر بلاغ هي هذا ميرك شوغير إلى هذا صابالي قالتين تلمي دماري. تمر كجورنال هذا السماري كوميونتي ترى من سماري يوت أما ورثة يرفاس وين جورنال سود قرصان ورجع رسال. ماشي ركز كده إن شاء الله عبد الله يرضى إن شاء الله وما سنتها هو يصير عندنا سحرتي سهرة إن شاء الله محمدنا فكر كاجا يرأي ديبتي إن شاء الله وحنجعل على وسيلة ومغلي وقالن دون إن شاء الله تلفون كلا أيام قالن دون هلا والسلام عليكم كسر برنامج كاركتر بالشدة وعليكم السلام أولا ما عايز ماشي كسر ليسو ولا الموصل اللي ما عايز الموصل تكسر ليسا والبرنامج صار لي تمام اوكي فكرة دتكو سو تفسير برنامج كاركتر بالشدة وأنا أقصد لي برنامج مركز وحن سلام يا دمان وحن سلام يا دنيا رد ماشي كلها في الجدة ماتود وحن سلام يا دنيا رد يدك يقول هي ما تسكتي مرتين ولا لها ماشي فديها مرتين سيان إنفورميشن سيان صح runtii waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijkan oo ah toosinta dhalinyarada iyo information kala qaadashada halkan waxa ka muuqda niman dhalinyaro oo runtii aad u dadaalaya oo runtii lagu farxi karo qaabka ay u fikirayaan ama qaabka ay u xurtarashkarayaan walaalka hore su'aasha la weydiiyay runtii waxa dadaal baa ka muuqda laakiin waxa weeyaan in waxaad moodaa dalaag of experience inuu jiro oo muxuu ahaa information nimankan muxuu ahaa joornaalada aansan aqoon badan u lahayn marka waxaad runtii qoran lahaa awareness-kaaga kordhi iyo su'aalaha kaa gudbaya waayo in mujtamacaaga lagugu hor karbaasho ama lagugu hor ceebeeyo uma qalantid mid dhalinyaraha oo mustaqballe baa tahay oo runtii la doonayo inuu mujtamacan hogaamiyo soomaalida aqooni ka muuqato waxaa kaloo loo baahan yahay dhalinyarada soomaalidu in ay ka qayb qaataan ilaalinta nabadgelyada ee aanay ka qayb qaadanin burburka dalka iyo dhibaatooyinka laguna dhaleecaynin dembiye aanay lahayn isla markaas waxaad muddo dhalinyarada soomaalida imika inay waxbarashadooda kor usoo kacayso jaamacadaha iyo koolajada ay aada u buuxinayaan maasha allah waa mid diilo cusub inoo leh haddii dalkeena burburayna qurbahana ku ceeboobin oo aynan sumcadeena u hoos u dhicin marka waxaan lahaa dhalinyarada awareness-kooda ha kordhiyaan waxaa jira aqoon-yahano idinka waaweyn oo dalka jooga oo fara badan inaad markaa waxyaabaha aad fahmi weydaan aad u celisaan waxyaabaha aad maaragtay idinku adkaada si aad markaa u heshaan cid idin kaabto oo idin saxda
idinkoo runtii aqoon sare leh haddana waxaa laga yaaba waxyaaba badan inay idinka maqan yihiin oo experience oo da ku saabsan oo aqoon meelo kale ka timiyo kala duwan ku saabsan sidaa darteed waxaan dhalinyarada kula talinayaa inaad aqoonta inta haysaan oo keliya aanay ahayn ee aad isku dayaan inaad la xidhiidhaan ragga odayaasha ee aqoon-yahanada ee dalka idinkula nool iyo sida ciidamada miidiyaha fadhiya sida taadihiyaha miidiya iyo ragga kale la midka ah oo laga yaabo aad ka heshaan kaabayaal fara badan oo kor idin qaada si markaa aad difaacni iyo istroogino adkaato waxaan filayaa inaan ku yaraagay waan idinka raali gelinayaa balse waxaad moodaa inaad sax tahay qaabka wax u daadihinaysaan inanka researchka wada laftiisa waxaan gudbinayaa dhalinyarada isku xidhkeedu inuu aada u bato korna loo qaado ayaan lahaa insha allah haddii la idhahdo waanad ku mahadsantiisa aad u wataan tvna waan qolada universityna waan ugu mahadnahaya qaabka wax u wadaan aad baad u mahadsantaha walaal waxaad moodaa teleefanadoo dhan in lagu wada jiro ay dadka wada doonayaan inay wada hadlaan insha allah aad baad u mahadsantahay sida aad ra'yigaaga usoo dhiibatay kusoo dhawow barnaamijka arrimaha asalaamu calaykum halo kusoo dhawow barnaamijka aragtida bulshada halo asalaamu calaykum raxmatullah وعليكم السلام ولا ما عاجي نشر كسر ليسو إبراهيم محمد يوسف قال هذا وحن كسر هذا لي والله لندن إبراهيم فكرتين سوق بين ليت وحن أرت مكورس إبسو شهري أمان تلفزيون كيونيفرسال ورنتي سامحي إن أي اللي يرتو أما بالشدة ورنتي فكرته سوق بيان جودهم بعرف نقص أصلا ميدياها وحن الله أرت بالشدة الصومالية وحن نبغى هالنهاين نقول proactive oo had iyo jeer markay dubay nagu dhaco inaynu soo baraarugno maaho inaynu xageebaa laynaga helay maxay waxaan inoogu dhaceen inaynu noqono dad soo jeeda oo leh yani masalan political voice dadkeenu yani masalan ma fowdaan ma register garaysna haddii inanka juraad ee ku ag fadhiya haddii uu damco u baahdo cid soo saarta waxa laga yaabaa inaanu helin marka taa waxaan leeyahay waxaynu u baahannahay political voice inaynu yeelano cod iyo cudud markaynu u baahnahay in isticmaalo taas waa one talabaad waxaan leeyahay mediahu sidiisaba waa controversial oo waxay doonaan wax ay ka iibiyaan bulshada had iyo jeerna waxay dadku jecel yihiin wax cusub oo xiisada ama run ha noqdo ama been ha noqdo marka ninka media ka socda ama presska wuxuu doonayaa inuu wax yani ka iibsama suuqa geeyo سادرات دلنيرتا يجود هذا بالشدة وحن كو براروتين لها إن أي آد وتحدران مركا يلاحظ ليان قف ميديا كسرها وحي كاني كرتا إن يعني implication أما أي سامي قف كاس يبالشدة با هذا الكوكو هذلي أو إستيدا في الشخصية يدباته كسو قادو جود هانا بالشدة يدباته كسو قادو waxaan anigu taageerantii meelo fara badan oo ay pressku ay soo juumeen doonayaan inay ka qaadaan organizations iyo individuals intaba waxa fiican runtii inuu qofku la kaashado dad laga yaabo inay uga macluumaad roon yihiin oo khibrad roon yihiin mawduuca ay ka hadlayaanna wax ka og waxaa dhacday oo runtii ay sida tan oo kale ku sameeyeen dhowr masaajid oo ogahay sida masaajidka Dar es Salaam ama masaajidka Buda management iyo community organizations leaders runtii waxay sameeyeen حتى dad leaders oo aan ogahay inay ka jawaabi karayaan as individual ay haddana maadaama ay og yihiin media inuu controversial yahay press ayaa waxay yiraahdeen horta bal first of all waxaad weydiinayso adigu facts can inay jiraan wala isaga su'aal weydiisaa waxaad weydiinaysaa inay jiraan horta adigu cadee inta kale inaad Somali community accusation ku samayso oo aad dhaleecayso xaquma lihi la yiraahdo xageed ka keentay inay tiraahdo dadka Soomaaliyeed mesela waa terrorist ay taageeraan dhalinyarada Soomaaliyeed shacabka ku jirta Ibrahim maadsan waxaa jira telefoonno badan ay ku jiraan bal insha Allah daawadayaasheena aad baad maadsantahay Ibrahim sida aad maaragtay nolol soo xiriirtay bal insha Allah soo kooba hadalka ama fikradihiina